main military headquarters and accommodated 2,000 soldiers and 5,000 cattle. Al-Filat was Hassan's personal residence. Dar Ilalo was constructed as a watchtower for surveillance and defense. And Dawood was a comfortable guest house used to host foreign envoys, including diplomats from the Ottoman Empire. These fortifications made Tala a formidable stronghold and gave Hassan and the dervishes a significant military advantage for the next decades. markaad eegtid qaabka ay u dhisan tahay iyo istiraatiijiyadda loogu talagalay waxyaalo cajaa'ib aad ku arkaysaan waa qalcad loo dhisay nooc istiraatiijiyad aan xilligii la dhisay markaad eegtid aad ula yaabaysid oo loogu talagalay dagaal waxay leedahay gudaha ku leedahay ceelal biyood oo ka qodan oo dhowr ceel ah oo dee markaa daraawiish ka cabi jirtay waxay leedahay meelo laga dagaalamo gidaarkeedu wuxuu isu jiraa ilaa 2 mitir iyo bidh balciis waa dhismayaal aad u cajaa'ib ah oo taariikhda Soomaaliyeed hore loo aqoon ku cusub oo ah dhaxal uu sayidku ka tagay qudbiyadu iyagu waxa weeye waa xabaalo qudbi waxa ku aasan Cabdulla Xasan oo sayidka aabihiya qudbina waxa ku aasan Caraseed magan oo hooyadiisa qudbina waxa ku aasan sida la hubo xaaskiisii saddexda qudbi ee kalena kulley waa daraawiishta un ragii ugu hormudsanaa baa laga yaabaa. In the context of what is happening in the broader British Empire, we see the British